dhegeystayaal ama daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij aan ugu magac daray la yaabka dunida. tabintu waa anigoo Abwaan Sharmaarke Saciid Maxamed. daawadayaal ninkan idiin muuqda waa nin kamid ah qabiilka Buudi ee dega Itoobiya, kaasoo sida dhaqanka iyo caadada qabiilkaasi yahay loo aqoonsaday inuu yahay horyaalka quruxda ee sanadka, iyadoo nin kasta oo habdhiskiisa ama qaabka jirkiisa uu sidan u eg yahay uu ku dhexleeyahay qabiilka Buudi sharaf iyo sumcad aad u weyn oo la soo koobi karin. haddaba waxaa wax aad loola yaabo ah in qabiilka Buudi dhexdiisa si weyn loo jecel yahay ragga leh caloosha waaweyn, iyadoo weliba la aaminsan yahay in lahaanshaha caloosha weyn ay tahay mid soo kordhisa qurux, bilic iyo maamuus iyo nasiib wanaag aan la soo koobi karin. sanad walba waxaa la qabtaa xaflad lagu maamuusayo laguna tartansiinayo ragga leh caloosha aadka u waaweyn. dhegeystayaal, daawadayaal, waxaa iyaduna wax kale oo laga yaabo ah in ninku si uu u yeesho calool weyn ay tahay in uu cabo dhiigga iyo caanaha lo'da. haddaba ninka sanadka loo aqoonsado inuu yahay boqorka calool weynida amaba ganac weynidu ayaa socod ku soo dhex mara deegaanka ay degan yihiin qabiilka Buudi si uu u muujiyo uguna faano habdhiska jidhkiisa iyo calooshiisa weyn, waxaana loo guuriyaa gabadh allaale iyo gabadho calmado. haddaba sidaynu ognahay dhegeystayaal ama daawadayaal, waxaad ogtihiin in lahaanshaha caloosha weyni amaba ganac weynidu ay Soomaalida dhexdeeda wax aan la jeclayn ka tahay, gabdhuhuna aysan jeclayn ragga noocaasi inay guursadaan. haddaba waxaan kula talinayaa ragga Soomaaliyeed ee caloosha waaweyn leh ama ganaca waaweyn leh inay aadaan deegaanka ay ku nool yihiin qabiilka Buudi, halkaasoo ay ka helayaan sharaf iyo sumcad iyo weliba gabdho ay guursadaan. mahadsanidin. waa aniga oo Abwaan Sharmaarke Saciid Maxamed. dhegeystayaal ama daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij aan ugu magac daray la yaabka dunida. tabintu waa anigoo Abwaan Sharmaarke Saciid Maxamed. daawadayaal, ninkan idiin muuqda waa nin kamid ah qabiilka Buudi ee dega Itoobiya, kaasoo sida dhaqanka iyo caadada qabiilkaasi yahay loo aqoonsaday inuu yahay horyaalka quruxda ee sanadka, iyadoo nin kasta oo habdhiskiisa ama qaabka jirkiisa uu sidan u eg yahay uu ku dhexleeyahay qabiilka Buudi sharaf iyo sumcad aad u weyn oo la soo koobi karin. haddaba waxaa wax aad loola yaabo ah in qabiilka Buudi dhexdiisa si weyn loo jecel yahay ragga leh caloosha waaweyn, iyadoo weliba la aaminsan yahay in lahaanshaha caloosha